Ecuador oo rasmi ahaan loo yaqaano Jamhuuriyadda Ecuador waa dal ku yaala galbeedka qaaradda Koonfurta Ameerika waxaana uu xuduud la wadaagaa wadamada Colombia, Peru iyo Badweynta Pacifiga. Dhammaan wadamada Koonfurta Ameerika waxa ay sohdimo la wadaagaan dalka Brazil marka laga reebo dalalka Ecuador iyo Chile. Badka dalkan ayaa lagu qiyaasaa 283,561 kiiloomitir isku wareeg waxaana uu ku jiraa kaalinta 17aad ee liiska dalalka ugu ballaaran caalamka. Magaca Ecuador waa erey laga keenay afka Isbaanishka, macnihiisuna waa equator ama dhulbadhe. Dhulbadhaha oo ah xariiq mala awaal ah oo dhulka u kala qaybiya waqooyi iyo koonfur ayaa mara dalkan. Dalkani waxa uu ka kooban yahay 24 gobol waxaana magaalo madax u ah San Francisco de Quito oo loo soo gaabiyo Quito. Quito waa magaalada labaad ee ugu ballaaran dalkan waxaana ka sarreeya magaalada Guayaquil oo ah magaalada ugu weyn dalkan. Quito ayaa ah magaalo jooga badda ka sarreysa 2850 mitir. Quito ayaa loo tixgeliyaa xarunta dhaqanka, waxbarashada iyo siyaasadda ee dalkan Ecuador maadaama ay tahay fadhiga rasmiga ah ee dawladda iyo xafiisyada hay-adaha. Dadweynaha dalkan ayaa sanadkan 2021 lagu qiyaasaa 17,648,536 waxaana ay noqonaysaa waddanka 66aad ee ugu dadka badan caalamka. Spain ayaa dalkan qabsatay qarnigii 16aad waqti dheer kadib sanadkii 1820 ayaa ay heshay xornimadeedii iyada oo ku biirtay dalalkii loo yaqaanay Gran Colombia, balse laakiin 10 sano kadib ayaa ay gooni isu taagtay. Lacagta rasmiga ah ee dalkan ayaa ah doolarka Mareykanka kadib markii sanadkii 2000 ay qiimo jabtay lacagtii dalkani. Ugu dambeynna waxaa si rasmi ah loogu bedelay doolarka. Afka rasmiga ah ee dalkan ayaa ah Isbaanishka sababtoo ah 93% guud ahaan dadka dalkan ayaa ku hadla. Ecuador waa mid ka mid ah wadamada ugu quruxda badan Koonfurta Ameerika marka loo eego in ay tahay dal yar oo ay ka buuxaan goobo dalxiis. Buurta Chimborazo waa goobta ugu dheer dalkan waana meesha ugu dhow qorraxda maadaama ay dalkan ku yaalaan kaymaha Amazon iyo Galapagos. Waxa laga helaa xayawaano ay adag tahay in lagu arko dalalka kale caalamka sida diinka ugu weyn caalamka oo miisaankiisu noqonayo 900 oo pound. Gorgorka Andean waa xayawaanka qaranka ee dalkan waana shimbirka ugu weyn ee duula boqortooyada xayawaanka. Sidoo kale waxa laga helaa dalkan nooc ka mid ah raha kaasi oo maqaarkiisa bedeli kara xilliyada roobka. Geedka Cinchona oo ah geedka qaranka ee dalkan waxa ay jirifta geedkani soo saartaa dheecaanka loo yaqaan quinine kaasi oo noqday dawadii ugu horreysay ee duumada. Sanadihii 80aadkii Soomaaliya waxa ay ahayd dalka dhoofiya muuska ugu badan caalamka, balse hadda waxa kaalintaas haysata dalka Ecuador. Wax soo saarka ugu badan ee dalkan ayaa ah saliidda iyo muuska. Ecuador waa dalka ugu dhow hawada sare. Ugu dambeyn xilliga doorashada waxa ku qasab ah qof kasta oo gaaray da'da 18 sano ilaa 65 jir waxa ku qasab ah inuu codeeyo.